falanqaynteena waxaanu maanta ku dul istaagaynaa dowladda Puntland oo si rasmi oo official waxay yiraahdaan weeye ugu dhawaaqday inay taageersan tahay gooniga goosadka nidaamka Hargeysa ee Soomaaliland warkaas waa cad yahay qodobkaas oo uu maanta wasiirka cadaaladda Puntland si rasmi ah ugu dhawaaqay ayaanu insha Allah la fagurayna waxay ahayd ninan baday halku aday waa ula ekoonay waa tii Puntland ahayd oo si rasmi oo official ah ugu dhawaaqaysa in gooniga goosadka Soomaaliland xaq yahay xorna ay u yihiin inay gooni u go'aan warkaas oo war dhiilale ah oo soo kordhay khatarna ku ajiritaanka Puntland ayaanu maanta la faguraynaayo dhinacyo badan baan ka istaagaynaayo dalaasinta iyo guntumaheenu ka bixinaynaa insha Allah sidaad horta la socotaan maanta wasiirka Puntland u qaabilsan cadaaladda Maxamed Cabdulwahaab ninka la yiraahdo ayaa si bareera wuxuu u yiri Soomaaliland xorna waa u tahay xaqna waa u leedahay gooniga goosadka arrimo kale oo badan uu sheegay oo iskaashanayna amnigan kala shaqeynayna waxyaalo badan oo hore aanu ogeyn oo muddooyinkii ugu dambeeyaba socday oo ahaa in dowladda Puntland madaxweynaheeda iyo xukuumadduba ay wadaya la noqdeen oo xiriir hoose la yeesheen nidaamka Hargeysa ayaa hadda bannaankaba u soo baxayo shirna waa tii maalmo dhow la sheegay in lagu yeeshay magaalada Nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha Puntland iyo midka nidaamka Hargeysa ciro oo waliba laba jeer in la shiray baa la sheegay la isku noqnoqday markay arintaas oo arin khatar badan oo soo korortay ayaan doonaynaa insha Allah inaan ka hadalno qaabka marka arrinkan uga hadlayo baan idin sheegayaa anigu ni reer Puntland ana qodobkan markaan ka hadlayo ha u qaadan anigu inaan tuubaraac horta uga hadlayo waxa la yiraahdo hadda waxa kelmad baa soo baxda la yiraahdo tuubaraac siyaasadeed macnaha qof baa wuxuu doonayaa dhinac inuu mucaarado dhinacaas markuu hobseed galo ama khaladaad galo ayuu ka faa'iideystaayo isagoo laga yaabo inuu wax kale ba aaminsan yahay ayuu uga faa'iideystaa oo markaas uu jaldaad siyaasadeed ku dhufta arrinkani ma anigu tuubaraac siyaasi uga ma jeedo way gayla oo anigu Saciid Cabdullaahi Deni iyo dowladdiisa laba qodob baan ku taageersanaan jiray ilaa haddana hadday sii wada ku taageeraya mid waxa weeye dagaalka buuraha calmiskaad argixisada lagu la jiro waan isleeyahay way ku amaanan yihiin midna waxa weeye dagaalka ay kula jiraan iyo iska caabinta ay kula jiraan nidaamka xasan shiikho beelaysan labada qodob anigu waan ku taageersan laakiin hadday khalad galaan oo meel kale gafa galaan oo ay ambadaan dawaan la sheego waa qodob horta qodobkaas cid hadda anigu aan mucaarado aan taageersanahay oo kooxaha mucaaradka isku sheego oo gobolada Puntland kala jooga maalmahan mucaaradsanaa dowladdan maxayday Saciid Cabdullaahi Deni anigu kamana tirsan iyagana ma taageero waayo waxa isaga hadda dhinac hadda isaga dhaamo la taageeri karo ima muuqdo marka ha u qaadan tubaraac waa qodobka kale waxa weeye arrinkan markaan ka hadlayo arrin caadifad iyo emotions iyo hadiiba eeba idin leeyahay arrinkan maxayday ka dhaxaya SSC Khaatumo iyo Puntland dadka Puntland u dhaxayo oo maxayday maalmahan muddooyinkii dameeto dad isu gafayo isdafaynayo arrimahaasna banaanka iska dhigaysa shelfigaad gashanaysa talaagada gasho waxaas arrinkan ma khuseeyo arrinkan waxaan ka hadlayaa anigu jiritaanka Puntland baa khatar ku jiraan idin leeyahay haddii arrinkan sida hadda loo handaabinayo ama qorshuya loo fuliyo nidaamka Hargeysa in xiriir lala yeesho ama la aqoonsado ama la soo dhaweeyo wuxuu khatar ku yahay jiritaanka Puntland waxaan ka hadlaynaa national security Puntland ayaa khatar galay waa arrin masiiriya oo amniga iyo jiritaanka Puntland saameyn ku leh dadka Puntland waa inay soo fahmaan marka qodobkan ka hadlayno marka ha u qaadan tuubaraacna maaha arrimo iska caadifiyo oo maxayday caadifadeedna maaha illa nacab yahay illa jecel yahay waxa ka hadlayno masaaliix istiraatiijiyo Puntland ayaa halkan ku lumaya haddii nidaamka Hargeysa waday laga noqdo oo dowladda Puntland ay taageerto mashruuciisa khatarta badan gooni goosta
qodobkaa waa in horta sidaas loo fahmo intaas waa qodob qodob saddexaad baan ku daray waxaan sheegayaa dadka reer puntland waxa weeye arrin anigu aan ogahay baa jira oo puntland ka jira waxa weeye madaxweynaha markaa jooga marar badan hadduu khalad galo dad badani kama hor yimaadaan waxay dhahaan madaxweynihii weeye xilkii buu hayaa hala iska daayo adigu sababaa loo sameeyaayo waxa weeye waa loo cadburiyaayo waxaa la yidhahdaa waa loo seeta dheerayaay wuxuu doona ha sameeyeyna ka daayo maadaama xilka haya dad baa saas yidhaahda aragtidaas waa aragti khaldan madaxweynuhu nebina maaha malagna maaha rasuulna maaha waa shaksi bini aadama waa khaldami kara marka adiga waxa weeye waxaa le anigu qaacidaan hirgelaya qaacidadaas waa qaacidada dhowr jeerna halkan waa ka sheegay waa qaacidada abibakar radia allahu canhu wuxuu muslimiinta markii uu nabigeennii salawaatullaahi calayhi wasalam markii la oofsaday oo isaga lala mabaayacooday oo khaliifkii uu noqday khudbaddii ugu horreysay uu jeediyey wuxuu yidhi muslimiintii markuu u khudbaynayay inta aan toosanahay oo dariiqa saxda ah haysto ila socdo oy taageera maalinkan ka leexdana iga leexda xaq idinkuma lihi inay taageertaan ninka marka madaxweynaha ah ama hoggaanka ah hadduu khaldamo kuma khasbanid inaad taageerto adigana shaksiyadaada sidaasaaba u fiicano shaksi xoraa tahayoo ilan cid sanka ugama xiride inaad mowqifkaaga caddayn karto adaaba waxa dadnimadaadaba ku jirta oo madaxweynuhu hadduu khaldamo waa inaad u sheegi kartaa oo madaxweyne waa khaldanta waad waxba xeerin oo waxaan marada la saarayo ilan waxaa la yidhi boogta waa la qalaayo wixii gudaha ku jira laga soo saaray say u doorsatee moogta waa inaad sheegto waxba lama huriyo waa la sheegaa wixii jira ishurisku dhibaato keena waa qodob oo aragtida noocaas odhanaysaa waa aragtida ay ku dhaqmaan ama qaab dhismeedka ay u dhisan yihiin nidaamyada authoritarianka kalitaliska dictatorshipka baan madaxda la eedayn karin oo madaxda sax iyo khalad waa lagu taageera madaxweynihii oo la arkayo dad badan oo og ninkii hoggaanka ahaa oo ummadii god madow ku wada oo jebinayo oo meel lagu baaba'ayo u wada baa la aamusayaa loo sacbinayaa oo laysaga sacbinayaa waxaa laleeyahay maxay aabihii garashada geyigeena siyaad bar adigaa ku soco baa laleeyahay dad og xataa oo shaksiyaad og baa laga yaabaa inaysan u sheegin madaxweynaha ama hoggaanka markaa jooga waxaa dan ugu jirtaa khaladkooda in loo sheego oo qofku markuu gudaha ku jiro dadka dibadda ku joogaa banaanka jooga waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood iyagu wax isaga aan u muuqan ay arkaan hoggaankana maxaa ku dhacaya authoritarianka ah hoggaanku waa isla baxaya wuxuu haystaa inuu kaligii saxano yahay kaligii qumano yahay isagu dadka ugu wanaagsan yahay ugu aragti dheer yahay hoggaanka authoritarianka ay saas u aaminaan marka xataa mararka qaarkood iyagoo inay khalad ku jiraan bayse ka soo noqon karin waayo ummadda khalad uma qiran karaan war khalad baan galay ma oran karan waayo qofkan muxuu soo arkaa macsuum ba inuu yahay aanu khaldamin buu soo arkay hadda dalkeenu muxuu ku burburay siyaad barre dictator buu ahaa siyaad barre hogaamiye dictator buu ahaa dad badan baa ammaano wax ka sheegay wanaaguu sameeyey waa jiraan laakiin dictator buu ahaa siyaad barre waxba looma sheegi karin dadka ku hareeraysan nacamlayaal bay ahayd iyadoo magaalada la soo galay baan loo sheegi karin meesha dalku ku dambeeyey waad arkaysaa khataraha ay leeyihiin nidaamyada mardi qaab dhismeed authoritarian hadda ummad u dhisan haddaad aragto way jabtaa wayna burburtaa aakhirka qodobkaas marka waa in saa loo ogaadaayo dambaa ugu jirta dowladdu in wax loo sheego waa soofihii waa la soofaynaya ka joog marka la yidhaahdo waxbay arkayaan khaladaadkooda in la tuso loo sheego iyagaa dani ugu jirtaa waxa weeye waa nidaamka siyaasiga oo caafimaadka qabaa waa inuu leeyahay warbaahin wax sheegi karta mucaarad wax tilmaami kara dad waxgarad oo kale xataa mucaarad inuu wax sheegi karo oran kara war khalad baa jira ka joog hadday ummaddu noqoto ummad authoritarian qaab u dhisan sida dadka reer Puntland ka arkay qaab authoritarian nidaam macnaha wuxuu yahay kala talisa oo la leeyahay hogaamiyuhu wuxuu doona ha sameeyo ka laga aamuso yaan la hadli waxbaa jira halkana wax ka imanaya haddii la yiraahdo ummadaasu waa jabtaay ogaada way burburtaa waayo hogaamiyihii baa wuxuu ku dhiiranayaa khaladaad fara badan oo laga yaabo inuu ka joogi lahaa dilay war ka joog buu ku dhiiranayaa midda kale khalad ba isagu inuu sameeyo soo arkimayo hogaamiyaha dictatorka suma arkaba
khalad ba inuu ka dhici karo macsuum waayo qofka dictatorka muxuu dadka u leeyahay waa idin maamulaya anaa idinku fiican anaa idinku aragti dheer anaa maxay idin waxa beedin wax walba ogaal la baana idigu xama ogidin buu leeyahay maxaa siyaad bare maxaa loo oran jiray aabihii garashada geyigeena siyaad bare aabihii garashada geyiga ah nin kollay garashada waa laakiin yaa tijaabiya la yiri aabihii garashada geyiga waa maahay waa been la sheegaya dadka lagu jaah wareerinay marka hadduu hogaamiyuhu isu arko inuu yahay aabihii garashada geyiga hadduu yahay haddii khalad ka dhaco ma qiran karo ilaan ummadii uu u sheegtay shalay inuu yahay aabihii garashada geyiga waa waxay oranaysaa ila banaadam waaba khaldamaysaa maxaa noo sheeganaysa wixii aad garashada sheegaysa marka ma sheegi karo waa arrimahan lagu jabo ummaduhu ku jabaan weeye qodobkaas mar haddii hogaamiyuhu isla baxo oo yidhaahdo anaa keligay baa saxan inta kalena waa khaldanta waxaana ka garataa qaabkay u hadlaano dadka markiiba afkay jabiyaan maxaa ka sheekeynaysaa war nagala tagay dhahaan si hadda wasiirkii maanta uu qaar warbaahinta ka mid u deedafeenaya hataa nin dhallinyaraa timihiisa ayuu uga hadlayay waxyaala aan ka yaaba qodobkaa marka horta waa insaa loo fahma maxaa dhacay dee waad la socotaano madaxweynaha puntland hadda ka hor ayuuba si bareera u sheegay 2 bilood 3 bilood ka hor buu khudbadu ka jeedinayay garoonka magaalada boosaaso maruu u xirayay tababar ciidanka BNPF ayuuba sheegay wuxuu yiri xer bay u yihiin fikirkooda go'aanka Soomaaliland war in lagu ixtiraamo madaxweynaha puntland bayna yiri wasiirkuna wasiir tarjumay had intii xoogaa buu ku daray waa siin national wasiirka cadaaladda puntland wasiir national isaguna intii maanta yiri khatarta arrinkaas leeyahay eragaas leeyahay dib baan ugu soo noqon doonaa waxaan la ogeydeen in lagu bashiray meesha la yiraahdo Nairobi sida wararku sheegayaan oo 2 shiroo qarsoodi halka lagu galay oo heshiisyo la gaaray oo wax la isku afkartay nidaamka Hargeysa hogaamiyihiisa iyo madaxweynaha puntland arrinkaas waan leeyahay waa gaf taariikhi oo dhacay buu ahaa in la hor fariisto dowladda puntland madaxweynaha puntland uu hor fariisto hogaamiyaha goosadka oo sheeganaya dhulkii puntland qaar kamid sheeganaya cadawna ku puntland waxaan lagu leeyahay waa la heshiinaya iyo Soomaaliya waa ka hadli doonaa waxaas qaabku cadow puntland uu yahay ka hadli doonaa iyadana waa gaf taariikhi oo dhacay weeye mana hayno dhaw xaaraan bay hilib doofaar qof cunay kama duwana la kulanka nidaamka Hargeysa hogaamiyaheeda ilaa uu ka tanaasulo sheegashada uu sheeganayo dhulka puntland in la kulmo ma waa hilib doofaar nin cunay kama duwana weeru ka hadlayna qodobkaas waa qodobkaas horta anigu arrinkan maanta dhacay kadisna iguma la yaabna iguma in madaxweynaha puntland uu dowladda puntland ku hogaamiyo aragti oranaysa waxaanu xiriir la yeelanaynaa wadayna la noqonaynaa nidaamka Hargeysa aragtida goosadkan taageerayna oo hadda dad baba soo baxay macnaha kudlad loobiya oo puntland ka abuurantay oo u ololaysa goosadka madaxweynaha puntland baana mas'uulka ah abuuray ugu yaraan waa dhiirigeliyay isaga dhiirigeliyay ku xiray kuwa u ololayo maalin kasta aragtida warbaahinta iyo social media uga ololeynayo goosadka oo reer puntland horgala noqday wada aragtay aniga horta aankaan la yaabna iguma kaysna iguma taariikh baa marka dib idin ku celinaya Saciid Cabdullaahi muxuu yahay xiriirka ka dhaxaya nidaamka Hargeysa goosadka iyo Saciid Cabdullaahi xageesa ka soo bilowday anigu taariikh baan dib idin ku celinaya markii uu socday ololihii doorashada 2018 oo markaa waxa madaxweynaha Cabdiwali Cali Gaas Saciid Cabdullaahi murashax buu ahaa ayaa arrin baa dhacay magaalada London buu ka dhacay muhiima oo inoo tilmaamaya xiriirka Saciid Cabdullaahi Deni iyo nidaamka Hargeysa meesha uu ka soo bilowday ama meesha uu ku saleeyay marka waxa jirta xaflad oo Saciid Cabdullaahi Deni ku qabsanay magaalada London markii ololihiisa wada 2018 adigu bartamaheeda ama aakhirkeeda weey markii uu halka xaflada ku qabsaday ayaan xafladii waxaan ku arkay dad badan oo waxay yihiin reer Somaliland ama gobolada Burco iyo Hargeysa ka yimid oo dadka nidaamka goosadka taageersan oo farba noocyada badan isugu jira oo odayaal iyo waxgarad iyo dad siyaasiyiin oo karto adigu habalo waxba ku jira dad badan baan ku arkay noocaas arrinka marka oo macnaha way bahadleen qaarkood way u ololeynayeen oo taageersanahay waa kaas waxaan ogeyn
in 2018 dagaal uu ka dhex dhacay Puntland iyo nidaamka Hargeysa oo meesha tukaraq oo markaa way isku xumaayeen madaxweynihii markaa joogay oo Cabdiwali Cali Gaas iyo Somaliland way isku xumaayeen oo xaalkoodu xaal fiican ma ahayn xiriir dhow ma ismaaniyo sida muuqata oo dagaal baa halkaa ka dhacay dhibaato badan ka dhacday marka anigu de waxaan isiri war qolyahan Somaliland oo Saciid Cabdullaahi Deni taageeraya oo xafladiisa ka soo qayb galay ma inay saameyn ku yeeshaan doorashada dowladda Puntland bay doonayaan arrin hore u dhici jiray arki jiray kulay anigu intaan ogahay macna si bareer in shakhsiyaad ka soo jeeda mandaqadaas Hargeysa iyo Burco inay u ololeeyaan murashax Puntland ma arki jiray kulay anigu intaan ogahay nin marka xogogaalnimo aan ku tabeeyo oo reer Puntland oo London degan baan la hadlay weydiiyay waxaan arrinkaas muxuu ku salaysan yahay dadkaas u ololeynaya Saciid Cabdullaahi Deni oo Burco iyo Hargeysa ka soo jeeda maxay ujeedkoodu muxuu yahay ayaan weydiiyey ninkii wuxuu igu yiri bal xog baan raadinayaa muddo 2 bilood kadib ayaa ninkiis maqlay haddana ninku waa nin xogogaal oo dowladda Puntland wuxuu ka ahaan jiray agaasimi aniguna mar baan waxaan ka wada shaqayn jiray hay'ad kuwa samafalka ah marka waa nin xogogaalnimo aan ku tabayo wey waa nin reer Puntland wuxuu igu yiri 2 bilood kadib waxaan xogta aan helay waxay sheegaysaa markaan baaritaan sameeyay inay jiraan dad reer nidaamka Hargeysa ka socda oo xiriir la yeeshay Saciid Cabdullaahi Deni oo wada hadal la furay oo yiri niyahow maamulkii hore oo meesha joogi jiray oo Cabdiraxmaan Farole xiriir baa naga dhaxayay oo xagga nabadgelyada ka wada shaqayn jiray wax dhibaato ah naga dhaxayn ninkan hadda jooga oo la yiraahdo Cabdiwali Cali Gaas waanu isku xumaanay weystile waxa weeye isagu wada shaqayntii buu gooyay horay aan u lahayn saa darteed haddaad adigu meesha ku guulaysato waanu ku taageerana dhaqaalaana ku taageerina haddaad ballan qaado inaad adiguna xiriirka sidii horeeto u soo celinayso oo berigii Farole uu joogay oo kale taa in wada shaqeyn yeelanay arrin noocaas laga wada hadlay buu yiri dad nidaamka Hargeysa magaalada u joogo wakiil ku leeyahay safaarada uu ku sheego dad kale oo xisaabta ka tirsanayo baa joogo aad bay la socotaan reer Somaliland ama mandaqadaas Burco iyo Hargeysa ka soo jeeda magaalada London iyo Ingiriiska aad bay ugu badan yihiin aad bay u joogaan dad noocaas ay ninka wada kulmeen saasayna ku wada xogtaan ku maqlay buu ugu yiri ninkaas waa sida ninkaas uu sheegay waana warkiisa aan ku kalsoonaan karo wuxuu ku daray waxa la yiri dhaqaalaha waxa ku siinaya oo laga siinaya macnaha dhaqaalaha aad ku galayso doorashada qayb ahaan dahabshiil ayaa dhaqaale kugu taageeraysa ayaa loo ballan qaaday ninkaas waa ballan qaad markaas xogta horta xilligaas aan ugu ogaaday waa 2018 doorashadii baa dhacday weyn ogeey waa tuu ku soo baxay qodobkaas wuxuu ii muujinayay Saciid Cabdullaahi Deni inuu u janjeero dhinaca Soomaaliland waa qodobkaas qodobka labaad waxa weeye Saciid Cabdullaahi Deni markuu xilka qabtay wuxuu Puntland ka cayriyay jabhadii Caash oo qarna fadhigeedu ahaa oo nidaamka Hargeysa khatar ku ahayd oo la dagaalamayay Saciid Cabdullaahi Deni wuxuu ka shaqeeyay say dib ugu noqon lahaayeen wada hadal iyo nabad ula qaadan lahaayeen musabbiixi markaa xukunka aad buu arrinka ugu dadaalay wuxuuna jabhada culays buuna saaray qayb buuna ka طبعا duruufo kale waa jiraan laakiin qayb buu ka ahaa jabhada in dib loogu xiriyo Soomaaliland Saciid Cabdullaahi Deni waa arrin kale oo muujinayay in Saciid Cabdullaahi Deni uu u janjeero dhinaca Soomaaliland arrinka kale wuxuu ahaa waxa jiray ciidan reer Sanaaga oo ilaa kun gaaraya oo ka soo goostay dhinaca Soomaaliland 2019 aakhirkeeda markuu xilka qabtay adigu bila kadib bay ahayd arrinkaasna dhacay wala socoteen baan u maleynayaa ciidan aad u fara badan oo kun adigu lagu qiyaasay ayaa ka soo goostay dhinaca Soomaaliland Puntland u soo galay ciidanka markii muddo laga shaqeynayay sidii loo soo wareejin lahaa dowladda Puntland loogu soo wareejin lahaa waxaan ogahay xog sheegaysa in Saciid Cabdullaahi Deni aanu aad ugu faraxsanayn ciidankaas soo goosto oo aad u daneynay isagu dad mas'uuliyiin kale baa jiray oo maxay aad u daneynay arrinkaas reer Puntland oo maxay qayb ka qaatay ciidanka la soo wareejiyo laakiin isagu aad uma daneynay baa wuxuu isku day xataa inuu xuriyaamiyo ciidankaas si ku soo wareegi lahaayeen laakiin dhinaca Soomaaliland baad ogeeyeen waaba ciidanka iyaga iska soo wariyay waxay dhahan war waxba na tari mayaane waatu nuuxtaan yiri mushaar uma naga qaataan ana dhaafan waxba na tari mayaan marka maalay ku noqdaan ma jirin ciidankaas
adigu ciidanka markii dambe waxaa lagu guulaystay in la soo wareejiyo dabcan haddana ciidamada wax badan bay Puntland tareen oo ciidamada dagaalada ka qayb qaatay ama buuraha ha ahaato ama meel kale ha ahaatay weeyo ciidamada Puntland bay ka mid yihiin de waa laga faa'iiday Puntland way ka faa'iiday wey ciidankaas laakiin soo barigaas aadna uma dareen aadna ugu faraxsaneen baa la sheegay xogtaas ayaa aad u soo bixisay xilligaas waa qodob kale oo muujinaya Saciid Cabdullaahi Dani inuu waday la ahaa Somaliland waligiis qodob kale oo intaas oo dhan ka muhiimsan baa jira waxa weeye Saciid Cabdullaahi Dani ninka la yiraahdo shakhsiyan waa shakhsiyaad Puntland reer Puntland oo kamid yahay oo Ilaahay amarkiis gobolka mandaqadaas iyo dadkeeda iskaba jecelba wuxuu jecel yahay dadka ka soo jeeda Burco iyo Hargeysa waqooyiga Soomaaliya oo dhan maaha dadka Isaaq la yiraahdo dadka iska jecel weeye sabab uu ku jeclaado garan maayo macnaha anigu hadda macnaha muxuu qabiilka u jeclaaday iyo maaha waxaan ka hadlaya anigu markuu siyaasad galo dhibaatada uu leeyahay baan idin sheegay waxaa jira shakhsiyaad reer Puntland sababna horta waxaa jira bani aadamka marka laga hadlayo waxaa jira dad kaleeto iska jeclaada baa jira oo bare disposable waxay isaga diyaarsan mujtamac kale oo aan kooda ahayn bay jeclaadaan mujtamaca dhaqankiisa iyo fankiisa iyo haddii ay idin leeyahay cuntadiisa iyo waxaas iska jeclaadaano waxa weeye mujtamacaas ay niyadda ka jecel yihiin dadkaas waxay yihiin wadiin sheegi doonaa wax loo yaqaan cilmigan ka hadlayna bulshada marka laga hadlayo dadkaasu markay dadkaa jeclaanayaan laba eray bay isticmaalaan fayl iyo phobia matalan ruushka dadka ruushka iska jecel waxaa la yiraahdaa ruusophile bay dhahaan macnaa qofkaas dadka ruushku jecel yahay dhaqankooda iyo cuntadooda iyo buu jecel yahay qof ruush hadduu arko waa iska jecel yahay laga yaabo hadduu ka soo horjeedana phobic bay isticmaalaan phobia ama phobic erayga ah marka ruusophobic bay dhahaan laba kalmadood kalena way isticmaalaan baro iyo antina way isticmaalaan tan Mareykanka markay ka hadlayaan waxay dhahaan qofkaas waa baro America qofkaasuna waa anti American bay dhahaan ama waa ka soo horjeedaa marka waa dabeecad bini aadamku leeyahay qaabka u samaysan baa jirto dad buu iska jeclaan karaa qof mujtamac aan kiisa ahayn buu jeclaan karaa sababta keenta waxaa la yiraahdaa inta badan waxay ku fasiraan dadka cilmiga bulshadu wax cudur la yiraahdo inferiority complex qofkaas cuqdad nafsi buu qabaa in laga fiican macnaa dadka uu jeclaanayo wuxuu aaminsan yahay inay ka fiican yihiin oo dadka fiican yihiin ka dhaqan fiican ka sarreeya marka saas uu ku jeclaanaya marka dadka macnaa waa qof wuxuu qabaa isagu cuqdad ah isagu in laga fiican yahay saasay ku fasiraan dadka cilmiga bulshada baara ayaa saa ku fasira ilaahay marka waxaad jirta siyaasiyiin badan iyo dad badan oo reer Puntland oo anigu sababay ku jeclaadeen ma garanaye waxay iska jecel yihiin siyaasiyiinta iyo ka soo jeeda mandaqada ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya Burco iyo Hargeysa ayay iska jecel yihiin waxba ku garanaysa arrinkaas oo ku cadeynay Saciid Cabdullaahi Dani intuu soo istaagay mikrafoon qabtay wuxuu yiri waxa aniga role model ah ninka la yiraahdo cigaal baa role model ah madaxweynihii hore ee Soomaaliland ayaa role model ah ayuu yiri isaga oo role model ka dhigan karay warbal ka soo bilow meel kale horeba ha aadine war muxuu role model kugu noqon waayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo Soomaalida boqolkiiba 95 ama kaba badan bay isku raacsan tahay inuu hogaamiye taariikhi ah halgamaa weyn oo ummadda Soomaaliyeed magaceeda imaam muskada kor u qaada maxaad role model uga dhigan weey maxaad uga dhigan weey ka wala su'aal isweydiin leh هذا العدم هذا وقد يقوي حتى قبيل بكسر هذا العدم سواء احترام هو يسوي هذا وقد يقوي عبد الرشيد على شرماركي ما وقد يقوي اللهم حريص لو انت كل وين انت اللهم خوضنا حريص ما هذا وقد يقوي عبد الرزاق حاج حسين ما هذا وقد يقوي عبد الله يوسف ما هذا وقد يقوي سياد بري حتى وحكى علينا مجرى تدبا كريم وحكى علينا مجرى ما سببت ابو دورتي سيد عبد الله دل مدحوينه بالله بata bal waxa aad u dooratay ninka la yiraahdo cigaal umada ma u sheegi karta oo arrinka aan sheegayo inaad cid iska jeceshay caashiq gaar ku hayo waa qodob ninka uu leedahay waa role model waa dambiile khiyaamo qaran buu dalka galay dalka nidaamkan go'aan isaga salligu ahayo salka u dhigay oo asaasi waa the founder of the secessionist entity of Somaliland waxa weeye waa ninka la yiraahdo cigaal isaga asaasi asarabtu waa soo dagaalantay asaaska isaga la nidaamka dalka kala goynaya oo Puntland inuu doono
qayb gobollo ka mid inuu qabsado doonaya waxaa asaase u ah ninka aan leedahay wuxuu ii yahay role model oo cigaal la yidhahdo soomaaliyana hore wuxuu u saxiixay NFD iyo Jabuuti iyo isagaa saxiixay oo waa la ogaayo 67 ayuu saxiixay oo Kenya u saxiixay labadaa dambi buu ka galay oo khiyaamo qaran buu ummadda ka galay ninkaan leedahay role model buu yahay sabab role model kuna lama kan qodobkaasna waa qodob kale inuu cadeynaya inuu iska jecel yahay xagga dadka xagga ka soo jeeda inuu iska jecel yahay madaxweynahan way noo cadeynaysaa waxay ahayd halkaas waxa macnaha waxa jirta wuxuu yiri hees baa jiray ahaa dad waxa uu cano kuguna wanaag badan qofka waanadaadiyo wax ku qaata hadalkee jacayl aan lagula wadin waqtigaaga ayuu lumin arrinka maxaa loo leeyahay dadkan reer Puntland iska caashiqsan dadka ka soo jeeda Burcay Hargeysa aadka isaga jecel waa jacayl hal dhinac oo iyaga looma qabo waa mushkilad haddii iyaga jacaylku hadduu majhuul ahaan lahaa labada dhinac hadduu is dhaafi lahaa ilaa gacmaha is dhaafa galada ka dhaltaa soo ma hadduu jacayl iyagana loo qabo iyagoo wax dhan bay ahaan lahayd ma aha waa jacayl hal dhinac iyagunba iska caashiqsanay kuwa ay caashiqsan yihiin dadka iyaga ugu necbi iyaga dadka ugu necbi waa arrin la yaab bal ilidkooda u fiirsada qaabkooda waxaan sheekooyinkan hadda dadka lagu khaldaayo oo maxayday goldinta iyo maxayday amaanta beenta ha u qaadan rune dhabta waa qofkii nin weyn wixii jira waa garanaya doqona loo sheegi maayo dadka waxay ugu necab yihiin Puntland gaar ahaan ma jirteen bay ugu necab yihiin dadka nidaamka Hargeysa iyo dadka fikirka xaq jirka ah oo gooni goostka aaminsan waayo waxay aaminsan inay khatar ku yihiin bay aaminsan marka dhinac adiga macnaha ku necab inaad jeclaato waxaan is leeyahay waa another level oo macnaha waa cawaanimo kolley waxaan is leeyahay inaan kolley intii la garanayo waa dhaafto wey intii la garanayo waa dhaafto qodobkaasuna waa qodob arrinka la yaab kale baa marka wuxuu yahay qodobka ah in madaxweynaha Puntland iyo wasiirka cadaaladda Puntland ay yiraahdaan waxaanu taageersanahay ama nidaamka Hargeysa wuxuu xor u yahay كلمة يستعملها وحر وياها حقنا أولى إنه قانو مو هذا القدم ما يو مال قدم يسول هذا مية جمك مدحوين يقول عنده شوية تاجي أو إنه يري فكر كذا قانو قاصد حرب ويه ما أنا قانو قاصد كان تاجر سنة هو بعدا كلمة ورك وعدي هاي كلمة وعدها مدحوين يقول عنده بوحي إنه ليه وح قولوا قوثتك وحي حق أوليهين حرنا أوليهين إنه يقعان وثير كيسين أساسيين مركز وحي كده كانت الدولة Puntland وحي قاعدة السياسة أوفيشال أو رسمية أو إنه يتاقيرت النظام قولوا قوثتك السومالي طبعا الشرقنا والله يشين ما نقرنا أيام وهذا ما أنت وحي نجوغنا Puntland غير Puntland هاي مدحوينه Puntland حكومة Puntland أيابا وحي أدب تجريانو قاتين سياسة أورانيسا كون جوست كالصومالي لا وإلا تاجر أنا تاجر سنة وأنا لو كلاش غيرنا نسيبه كويلا هل كاس أنا هرت مرينا هل كاس أيه هرت المري أوي implication كأرجع كده أنا كلام رخوي سامينتا تبان وأرجع كده لا يدا ونيجاتيف كا وبنتلان خطر كوا وصومالي خطر كوا محيط ويركض الضمن وحلاقة يا بعد غير Puntland إني جيران وأرين كان إن سومالي لان لا تاجر إلا بومبوري إن على مدى الله قاطو أي كتهاي وحنو إسقبرني وهذا إسحنا أساسي خاتمه وهنقول دعوة أساسي خاتمه أيام كحماينين ضبع ثاث وفكرك وأنا دري سنة أساسي خاتمه أيو Puntland هذا إسكون سنبرنانا خلاف بعد جرا وحوي Puntland حوي ترسنة يسا أنا جورير Puntland أنا وحكت ترسنة مدحض أنا وحكت ترسنة عدة عن أيضين يواه جانك أساسي خاتم وسياسة خلدان قاطي ويري وحنو جلي حسن شيخي كوحدة بليسنا مقدسي جوكتو أنا المشروع هذا نكون بالمي مشروع هذا أنا وأنا كان دارو الدولينتا ودارو إن مرجنا الثالث نقول سميه أول الدولية ونظام بلاد هو يسألك على قدسه وحسن تاجر يا أبو يرفي نكلا يراد فرديه كوحة كوهر بيسن ويكون خلدني وقف وحنا كينا ميانا وحوي يقول دري خلاص ونخندون وين وقنا بناك يتعلم داس
ومع كان لمن أقواسك وحي هيك يعني حق بيولي لكن واحد كان لنا سياسة ده وكم المي في الرية يكون كم المين وخطرت كوا جريتان كبنتلان جريتان كدي بيكون يا ماشي الله يرضى جبلان يدك دارودك يقول عن سوماليا بخطرت كوا ويكون المين بينو كان لنا وأرن لا جران كرو وجريوي وأنا لا غير كنا مرنا لا وصار كرو أرن كاس لكن هل كان واحد كجرا adiga reer Puntland hadaa tahay oo aad SSC khaatumo siyaasadeeda ka soo horjeedo hoggaanka SSC khaatumo waa ku furanta anigoo kala ta waad ka soo horjeesan kartaa waad eedayn kartaa waad dafeen kartaa waad ka cadgoosan kartaa waxa weeye waa la xisaabtan kartaa SSC khaatumo waa u garsheegan kartaa waxba hadaa rabto hawlaha reer SSC khaatumo anigu waxba wala arko maray laakiin Somaliland baan taageeraya aqli ma وحوي سومالي معناها عاد أنا أقول هلك حناقة أرنكا أنا كقاعد أساسي خاتمه خلاف كان قد حي حناقة أنا كقاعد بان تهلوك يسوق تورا يا ضب يسوق تورا يايو سومالي لنا عدو كلام جدا بعرفك كجلي هذا ترى وحين غريسة إسقى إسكاب الدهب أذيك بقى كمان دوان تغف أنتوا حناقي مدح عباس كي يغبت يستري كمان دواني كمان دواني وأيوه أساسي خاتمه هدي أي ضبع كتر سنة يسوق واتقعد قوسك كرتها ضاربت أفيا دم وحرفتها لكن شمال الآن بنفك هجلا يا تاجرية ثمانية سجن دب كوتا وابنا أنا دب كوتا أنت إسا كوتا هي كوتا ذلك هاجي دون إسا مقالوي استراتيجي هابي جودها وشو قال إسا وعاد يكون من إسا خطر جريتان بهذه أنا كوتا أنت إسا كوتا هاي وحنا يا وسوينا يقول كيس وأنا قبصنا إسا لكن هذه أنا خطر بكوتا مركز أقول مجرين كري ويدي adigoo aan afka ka gelin oo taageerin gooni goosadka inaad khaatimo la xisaabtanto dab ka tabanayso artida saxda ah saas weey qodobkaas waa inta loo fahmaa oo qodobkan loogama dhigi karo qofka yiraahdo sabab uga dhiga SSC khaatimo aan islaynay saa darteed baan Somaliland taageeraya anigu iyaga ku xumaynaya waxa weeye qofkaas rabbi khalaq dalaq buu noqonaya qofka aan aqli lahayn buu noqonaya وأقول معناها هدي أد قفز قبطان ما يسلقيسه ما عدو بعد قولي كان سنيسه توهمية أنا تسحب ما عرفت أصلا وعرفت خلط دول قلب كاس وين وسك حريقية ورد هل كان مركا وحك إمبليكاش كذا لنا يعني دي شيء أما ثامين تكذا لنا يس أرنكن ثامين تكذا لنا يس وحوي مدحوينها بنتلان والدستور كبنتلان لوجود دورتي wuxuu maanta leeyahay dhulkii Puntland oo maxayday aniga la igu doortay oo xilku iga saaraa baan qayb kamida waxaan ku wareejinayaa oo saxiixaya nidaamka Hargeysa madaxweyne Puntland baa saynale wasiirkii Puntland baa saasle xukuumadda Puntland baa saasle SSC khaatumo wali dastuurka Puntland ku jirta laakiin hadaa adigu SSC khaatumo dad baa jira ana hadda maxay kala wajacleen hadana SSC khaatumo meel daran Allah ka tuuro oran kara jira iska bada sanaag bari baan ka hadlay Puntland كتر مدحوينا Puntland وحنا نلاقيه ما أنت هدو فلكا وكوكعي وكذا جاي يسقى أوله دلكي Puntland دلكي Puntland قار كم ذا أيام واحد جعنت وقال لي أو صحيح هي نظام كهرجيسة أو محاكو دعونا دتك وكذا جم دونا نظام كهرجيسة ما ينورة العبيد سده لجميستو لبهدلو سيد الروهين قالوا ولا دغمو دلك بورما دلك ما ينورة كل بعطيس سيدا سوليه مدحوينه Puntland iyo dawladdiisa baa saa ku dhaqankooda saas waana khiyaamo qaran arrinkaas waa dastuurkii isagu uu ku dhaartay qayb ka mid ah dalkii Soomaaliya iyo badal qayb ka mid ah dalkii isagu uu ku dhaartay inuu yiraahdo Somaliland baan kula shuraakoobayya oo codad baan dhaafsanaya waa khiyaamo qaran weey oo cad weey gaf taariikhi weey gaf dhaqan weey laakiin waa khiyaamo qaran weey oo dastuurka uu ka galayo Puntland weey madaxweynaha Puntland sababtaan saa u leeyahay maxay tahay haddaadan ogeyn iyo haddaad og tahayba horta Somaliland waxa ay tahay waana barata Somaliland maxay tahay dad badan oo reer Puntland calaamadeeda iska sitay waan arkay maalin kasta oo dabaaldegayna dad waxay haystaan qaar baa wax moodayaan soo calanka Somaliland markaad kor u qaato inaad qabiilka isaaqay amaanayso oo niyad wanaag u muujinayso dad baa fikir noocaas ah jira Somaliland horta waxa la yiraahdaa waa entity ku doodaysa inay iyadu xaq u leedahay dhulkii la oran jiray British Somaliland inay ka taliso oo dawlad gaarata British Somaliland dhulkii la oran jiray
وحدكيدو مريو عدا إيو كوبا أو قرداء إيو عرمو إيو عالدوفار دوشيدا إيو ماشي الله يلاقو وحدكودو مر بيدونيسا هورتا إني لو نكتو قبصتو وغضب يقول دستور كودانا وقرنتا واحد معنا أف هذا لا شيء أنا يجمع قلب كاسي درن بوحو يحي نظام كان هرجيسا يدتك تاجرسن أو جون مبدأ جون جوس كتاجرسن وأيديولوجيا جون جوس كأمسن وحي آمن سنه هدي حد كأنا تجين إن أنا أقوسي هلكري صفة كري أقوسي كوه الكران وأنا جعنت كل جان دول كل اللي شكو أورنجري أو من دغدي الأورنجري بريتش الشمالي لان وحد كذا يو عظم مرة دول كهدي أي سنة هلين ما آمن سنة إني دور جار نقول أرتقلب كوين دوجته هذا نهره وين هذا وجته أو الصومالي الآن يالجوه وسجلنا دول كيس يكريه مود الصومالي الآن هو قاضي ما دول كيس يقلوا بتشيد وعلوه شيء دول كهرتجوا قوي دجان وحد كا يعض إنه يمدان بدونية وحي أمن سين أرن كاس ولي بنا قفكو هدو أكسجين كوايميون نولان كرا وما وحي أمن سين هنا يجو أكسجين كودا جون جوسد كونوا يحد كيو حدا مرة يعني مسي نظام كارجيس سامسن إذا كفكر كا جون جوسد كتاجر أي سيد أمس هذا يصير هالكاتجين وعي أمسين لمرة يعني سياسيا مركا أما جاري أما قول جاري أما نور لو أرضي وحو يجا أرين كنا حدك إنه يمادان وعويا لو أرضي أما جاري أما قول وضع أوبشن كلام ماله ماشي الله يراضو حد الله يراضو ماشي الله يراضو مرة يعني متجرو ويشيئا كريان ماشي الله يراضو هذا يشوفانه حلقة حدو معه يقولون مرة حدنا ما يجي حلقة ماشي كريان ما يلقصوا كيس حتى ماشي الله حد كور بيوحي جوجان ماشي الله يراضو سو معه ماشي الله يراضو تكرق ما حد ويعاد ماشي يعادني من بره أهل لوجي كان هلكا كجرا معقولة ما انقلب معوية أنت تيجان أما ضدك النظام كاركيس قانون قاصد بكودو ذي أركتذا وقضايا وحوي الدولة قارن وهنجر اللي إحنا كي أنا وحنكوا هرقاضني حرية أنا هرقاضني كونفرت الصومالية وحوي إن جيريس كان جوي سنجر التاريخ قارن ولا عالم كوي وهكذا باكج اسكو حرن أو أركتي نارتيف بين أبو ربضان ولا دثاء دولة قارن وهنجر حتى يكون هالكا صومالي هذو ما أنت يراهو حد بمري هي قبيل حد قبيل بان وجوريا حاجة لقدر البلاوي ما لقدر البلاوي مني مركب كم تناسل كرارين لوجيك الصومالي الآن بحكم إيران يهيبة حد كائن للطبو يعرض هذيك لما جريت وحسومان أركتيكو إنه يقص ذي ما جوا كبعيد قبيل حاد قبيل بانصوب حي حاد قبيل كنا يابا هذا واحد الله يسواه يستمع الله يراهو بقدر كي غلط أنا على مسوق هذا أنا ما نقص الله يسواه وضربت ما هذا حد والله يا صمين كنا لا صمين كنا مجري ما نجري كنا إيه أنا قرشوه ما بقى أركتنا مركب ما أنت وثيرك عدالة بنلان تغيير مدحونا بنلان تغيير وحوي إنه يعاد يمادان الضفار يعرم يكبأ قرداء يمشي الله يراهو قو إنه يسافر يستاني نام كاركيس أيه هرت تغيير يعني وقال هذا أرنك أجيهين وواحد رموي هذا سن أجينا ما بنلان كذا سيدرم تصاب كذا سيدرم وعلى واحد بحلك إنه هاي ربي خلق والدلاغة وحا أي تاغيريان إيو وحا أي لما عامليان السومالي لما أنقراني وحكا كاركتر كذا بقران طبيعات هذا ما يغاني بالله يا لكن أنا وحا أمثاني وأوجي أي كنت قلبي أصماني كنت قلب أي دنبي ينوي أصماني ينوي وضل كودي أي بيعنا ينوي مدح بالله وركوا عليه قلبك هوسك حريق oo cidii maanta haday dooda maya anagu kalama haday kuula yimaadaan dooda maya anagu ma ogolaan inay ayuucada yimaadaan laakiin xiriir baan la yeelanaa si maanta wasiirku sheegay xiriirkana waa waxana ku kala duwanna maxaa ku kala duwantaaba ninkan wuxuu doonayo waa la yaqaan marka uu xiriirka kula yeelanayana wuxuu doonayaa inuu arrinka aad aqbasho uu sanka ka geliyo buu doonayaa inuu ayuucada yimaado haddaad xiriir la yeelato la fariisato oo tiraado wada shaqeynayo xiriir baanu yeelanayna waxay ka dhigan tahay aragtidiisa baad qaadato waana bat aragtida gooni goosadka markaa tiri aragtida gooni goosadka xorbay u yihiin
حقنا وأولى مركات الأرض أرتي أقول نقصك حاجة وتقنا ويعاد يعاد حق بوليه بك كما دون كلمة أتري وسيركوا إن ليه ومدحونا بالله إن ليه يعاد إني معدان حرب يوين حقنا وأوليه بين ليه يا عبد الله الأوغاد هذا الكميشي صار له وتقع ما إن مر الله صاروا هذا الكوعد يهوي أرنكاس هورت ماشية أو أركتي أورانيسا maxayday annagoo aan raalli ka ahayn baanu xiriir la yeelan karaa sheekada ayaa lagu leeyahay sheekadaas sheeko jirta ma nidaamka hargeysa waxa lagu yaqaan hal dabeecad buu leeyahay adduunka abuuran baba cidda uu xiriir la samaysanaya waa cid kala shaqeynaysa gooni goosadka cidda haddii dhinaca daar dowladaha xiriirka la samaysanayo haddaa aragto nidaamkaas cid ku dhowaanaya ama xiriir la leh waa cid kala shaqeynaysa gooni goosadkuna waa yuucadade wey tusaale aan siinaya laba tusaale aan siinaya inay saas tahay xal nidaamkan hargeysa dowladda ay isugu dhow yihiin dowladaha gobolka waa Ethiopia oo dowladdii maxay asalkooda ka soo jeedo oo man asalka waxa ka siyaasiga ah macnaha ay markii hore ka soo dhul bilaabeen SNM joog jirtay way meeshii ka soo abaabulan oo SNM saldhiga u ahay xiriir istaraatiiji oo taariikhiya ba ka dhaxaya SNM-ta iyo nidaamka hargeysa u xubsibtay iyo Ethiopia sidaasay tahay Ethiopia 2005-6 markii ay ciidamadeedu galeen koonfurta Soomaaliya magaalada Muqdisho dowladda Allahu naxariis Cabdullaahi Yuusuf hogaaminayay iyagoo taageeraya nidaamka hargeysa maamulkii markaa jooga xukuumaddiisii ninkii la oran jiray Riyaale iyo mucaaradku wasiilaanyaha labaduba Ethiopia si bareer ugu soo horjeestay waliba dagaal bay la galeen oo cadowgii Ethiopia dhan bay waxay isugu yeereen magaalada xarun uga dhigeen maxkamadihii ee ula dagaalamay oo ciidamada Ethiopia leenay ayay waxay ku martigeliyeen hargeysa taariikh dhacday way loogiya Ethiopia ku ayaabeen wamiyana saaxiib ahayno miyana isku danahayno xiriirkeena istiraatiijiga ma waxa cadowga yaga gacanta u siinaysa si bareer ay u sheegay adeecadahay ka sheegay waxay leeyahay maadaama Cabdullaahi Yuusuf oo daarood taageeraysa cadow baan idin aragnaa ninkaasaan cadow u aragnaa saadarteed waa kala furan halkaas maxay ku cadaynaysaa iyaga ciddii dantaa kala shaqeynaysa gooni goosadka un bay taageeraan cidda kale waa ka furanaya xataa hadday Ethiopia tahay xiriir dhow leeyihiin dalka Djibouti xiriir wadaya bay leeyihiin oo Djibouti xiriiradooda waxa weeye xataa xiriiro bulsho baa jira oo waxa weeye wasiirada iyo qayb ka mid ah dowladda ayaa haybahan waxay ka soo jeedaan Soomaaliya xiriir marka washaa'ish oo isku dhexgal baa jira xataa madaxweynaha Djibouti wuxuu qabaa gabar ka soo jeeda Soomaaliland buu qabaa marka iyagoo xiriirka haddana leh mar alla markay arkaan Ismaaciil Cumar Geelle oo hadal uu xaraf laho macnaha iyagoo isleeyahay marka wuxuu ka soo horjeedaa waxay doonayaan gooni goostka u yiraahdo way ku kacaan way caayaan way deedafayaan iyaga waxba ma xeeriyaan isaga iyo dowladdiisa wada aragtay marka nidaamkan hargeysa wuxuu dabeecad u leeyahay cidda uu xiriir la samaysanaya oo ku dhowaanaya waa cid kala shaqeynaysa gooni goosadka marka maamulka Puntland inama oran karo anagu xiriirna waanu la leenahay Somaliland gooni goosadka kala shaqeynayno warka caruurta lagu sheekeeyo way warka anagu ma sheekeen karta way wixii baan garanaynaa dabeecad wixii baan naqaanaa qodobkaana hoosta ka xarin waa cadays idinka cadeeyaba arrin kale qodobka kale waxa weeye madaxweynaha Puntland marka uu go'aanka noocaas qaatay oo yiri waxaan xiriir la sameysanayaa nidaamka hargeysa cadowga laba qodob baan u kala qaadayna qodobkan marka qodob waxa weeye Puntland gobolada waqooyi bari la isku oran jiray iyo gobolka Sanaag oo hadda isla Puntland ka tirsan iyo dhibaatada ka soo gaaraysa labadaas aan kala qaaday waxaan ku horeynaynaa Sanaag madaxweynaha Puntland marka uu go'aankan qaadanayo noocan oo xiriir la yeelanayo ninka la yiraahdo Cirro iyo nidaamkiisa gooni goosadka wuxuu horta saxiixayaa dalka hartigu degan yahay ee Sanaag bari iyo dadka ku nool ayuu wuxuu leeyahay waxaad hoos tagtaan nidaamka hargeysa u saxiixaya way warku cadi dadkaas iyo dalkaas ma geeyaan in nidaamka hargeysa la hoos geeyo hadda waa xor dal xor ka hadlayna
magaalada ceerigaabo marka laga yimaado xaafadii iyo qaybtii maxayday ama guud ahaan degmada ceerigaabo qaybtii hartigu ka deganaa inteedii badnayd ay hartiga kasoo qaxeen oo laga soo qaxiyey marka laga reebo madaxweynaha puntland iyo xukuumaddiisu waxay ina leeyihiin magaalooyinka xorta ah ee puntland ka tirsan maanta oo ay ka mid tahay baran iyo dhahar iyo ceelbo iyo xangalool iyo laasqoray iyo ceelaayo iyo buraan iyo hadaaftimo magaalooyinka noocaas oo xorta ah kaalaya qaata snm magaalooyinkaasaanu dabaq ku wadnaayo dabaq dahab baanu idinku wadnaayo dadka ku noole kaalaya qaato gumaysta dadkan anaga naga tirsan sidaasay horta leeyihin hadalku macnaha meeshuu yahay baa loogu tagaa moogta waa saas madaxweynihii puntland iyo dowladdiisa waxay leeyihiin magaalooyinka xorta oo puntland ka tirsan baanu idin siinaynaa kaalaya qaata dabcan SC khaatumo iyadoo gaaro iyadana waa iyada daaba xaalad gaaray ku jirta dad badan oo reer puntland hadda haddii lagu soo qaado wixii ku dhacay iyaga shaqo kuma lihin bay oranayaan iyaba daaba kuwaasna kuwa laftigooda waxay leeyihin iyaga laftooda qaatay leeyihin oo garab maaha xataa haddaa isqabataan carab iyo labadan baa isugu dhow baa la yidhi waa isqabtaan haddaa si kasta isu qabataan SC khaatumo inaad tiraahdo cadowgu kaala qabsan maaha gar maaha cadow weliba adiga ku dhibaya oo dhib kula imanaya adiguna ayaa ka badbaadaya laakiin iyaba daa iyaga madaxweynihi wuxuu leeyahay kaalaya qaata buu leeyahay arrinkaasu garma yahay ninkaan dalkiisii iyo dadkiisii oo xor ah oo hadda aan macnaha ciidama haysanbaba inuu ugu yeero niman halkaa joogo oo hadda ceerigaabo jiidali meesha ugu sugaysay bay joogaan inuu yahay maya kaalaya jiidali miyaa joogta maya soo socdo xaggee nimaadna ceeldoofaan iyo carmo imaado dusheeda halkana kuba imaada qarro dusheeda imaado halkana yoocada soo istaaga madaxweynihii puntland iyo xukuumaddiisibaa sidaas inalehe ogaada saasay leeyihiin macnaha waxaa laga yaabaa ereyada iyo dhaqdhaqaaqyadu inay si kale adiga kula muuqan laakiin macnaha gudaha weyn oo ku jira waa arrinkaa wey oo arrinkaa haddaa eeg adiga haddaanay maanta dhicin ama berri dhicin ama bisha soo socda arrinkaasu dhicin ujeedada hadafka laga wada hadlaayo iyo hadafka heshiisku waa midkaa weye hadduu rabo 10 sano kadib ha yimaado waxaa laga yaabaa iyagu inaan hadda si degdeg ay kusoo gaarin inta ciidama maanta soo duulaan soo qaadaan dhinaca snmto inaanay maantada tanba iman baa laga yaabaa xadka laakiin waxaa laga wada hadlayaa arrinkaa wey meesha loo socdaan hadafkaa wey goor kasta hala gaaro marka adigu indhe kumiiraha noqono maya hadda anigu hadda ciidan ma arko oo SC khaatumo waa hortaagan oo halkana jiidale iyo waxbaa waa la hortaagan yahay maanta ima mudan gooray yimaadaanba waa imanaya mardii waxaaba lagala shaqaynayo hadafkuna kaa yahay goor kasta ha noqoto 10 sano ha qaato 5 sano ha qaato halkaa inay yimaadaan baa la rabaa qabsadaan qorshuhu waa sidaas wey marka adigu waa inaad strategic fishka waa inaad horey wax u arki kartaa waxa soo socda bal waxaan eeg bal waxaas eeg waxa soo socda waa inaad arki kartaa wey oo saadaalin kartaa waa indhe ku miira noqon wasiirada puntland saasay leeyihin waxaan la yaabay madaxweynaha puntland markuu saas leeyahay waxaa jira wasiiro gobolka sanaa ka soo jeeda oo ninka qorshee la yidhahdo hadda guddoomiyaha guddiga taakulaynta ciidamada puntland baa ka mid ah waxaan is weydiiyaa niyow marka uu madaxweynuhu la shirayo golihiisa wasiirada oo ay kasoo horjeedaan qorsheel iyo wasiirada kale oo maxayday gobolka sanaa kasoo jeeda iyo kuwa SC khaatumo kasoo jeeda sidee buu indhaha u siin karaa nima ilaa waaba gadaya nimanka sida ahmiga buu u gadaya moogta xoolaha ahmigaasoo lama kala gato nimanka saylad buu geeyey ahmi ahaan shirka lagu qabanayo Nairobi waa saylad lagu biicinayo SC khaatumo iyo nimanka meesha la yiraahdo maax ama sanad baa lagu biicinaya marka waxaan isiri madaxweynuhu damiir buu leeyahay shakhsi damiir la weey niman uu biicinayo oo sidii ahmiga u biicinayo indhahaas ay u siin karaa muxuu dareemaa markay hor fadhiyaan oo hadlayaan halka shirka golaha wasiirada miisaska kasoo horjeeda fadhiyaan muxuu dareemaa madaxweynuhu niman tolkiisa oo dowlad iyo dad iyo wadaagaan isku dowlad yihiin isku dad yihiin xukuumaddiisa ka tirsan isagu uu magacaabay buu wax sida ahmi ahaan u bixinay xoolihii buu bixinay Soomaaliland buu ka gadaya muxuu dareemaa marka madaxweynuhu dareen ma leeyahay ma garan karo iyagu maxay dareemaa iyagu meesha markay fadhiyaan waa in la biicinayo suuqaasi for sale ba u yaala waa la biicinaya biicu joog wey kuraas baa laga dhaafsanayaa baa leeyahay waa ka hadli doonaa magaalada muqdisho xil laga raadinayo oo quud aan jirin qoryo u guraba ah hadda ma muuqata iyagu maxay dareemaa maalin iyagu mudug mid ka hadlayan arkayo wasiir qorshe soo shaqadiisa buu haystaa la yaab male laakiin muxuu dareemaya
madaxweynena wuxuu shirbi ku jira iyagoo ku bixinayo oo gorgortana lagu gorgortamayo iyaga lagu dul gorgortamayo isagana Puntland iyo masaalixdeedii ku hadlaya shaqadii isaga loo igmaday wasiirka waa buu haya ciidamada buurta ka dagaalamaya oo waa bixiyo xas ciidamada ka soo jeeda gobolka oo buurta caalamiska ka dagaalamaya iyaguna waa biixi joog wala biixinaya fuad xanaano iyo oo dhaawacmo iyo Allah caafiya ragii dhintay kulligood waa biixi joog raggaas oo dhan miiska la saaray su'aal kale markay isweydiiyaan waxba dhici kartaba inaanay u aragto hadda wasiirkan hadlayay oo hadlayay xildhibaan u jawaabaan arkayo gobolka Sanaag meelaha ka soo jeeda waxa laga yaabaa wasiiradan matalan wasiirka Maxamed Cabdulwahab hadda hadlay Juxa iyo Saciid Cabdullaahi Deen markay hadlayaan oo arrimaha nooc talaabooyinka noocaas qaadaya show mala inay waxyeelayaan reer Sanaag soo arkaan baa warsangal inay waxyeelayaan dhulbaanta inay waxyeelayaan majeertaanka gudaha galaya cidii ku jirta inay waxyeelay isoo arkaan baa markaan ariga ka fikirma maxaan ma roobad buu haystaa dad dareen leh gumaysi hoos galayo oo dhibaato ku dhacayso dalkooda la qabsano miyaan u arag dadkan ay saa u gelayaan oo iyaga golaha wasiirada kula jira ma waxay u arkaan robots inay yihiin aan dareen lahayn soo dad bini aadan oo iyaga la mid oo xanuunsanayo oo meesha ay ku wadaan jaxiimo oo kale ay tahay oo leeyihiin reer haydin qabsado oo haydin gumaysto miyaan u arag waana dad hadda madax bannaan dadkan ka hadlaynayo magaalada Cergaab inta laga xaafada in marka laga yimaado dadkaas waa dad bannaanka jooga dadka la bixinaya haddii bal laba haysan la waxa la oran lahaa warba waa la haystaa hal iska daayo bay ahaan lahayd si waaga hore loo haysan jiray gobol kasta doodii waaga taagnaan jirtay oo iyaga isu keenay iyo iyaga xaggaas doonayo iyaga horgalowda ka mas'uulay doodii markaa jiri jiray waxa la oran karaa dad baa doodahaas jeedin jiray in kastaan markaas naaru doodaas inay khaldan yihiin baa arki jiray وأنا لا يابله بني آدم كان لبيعنا يا محيي مدحوينهم هذا كور بنت ماشي بوغدي الباب ده جراعي عضبو مركو عضك قبل انا وكاله دور شيء حسبيس مدحوينها بلدان برامبوتي برانتي اشاتكتي هذا نلوب انت شر كلك شاتري waxaan ka iibinaya ninka la yiraahdo maxaydi cirro العرو wax kala door may waana cirro wuxuu doonay cirro wax kala dooni may baran buu doonaya inuu qabsado حد كاسو ربا إنه يمد واللوجيا وكسر هذا قف كي كوش كي وح كلام كوا هذا وقف دوني معنا كنت كيلو جهول اليومي وح أي دوني يعني مدحوين هذا النظام كارجيس وح دوني يعني وحد كائن يمان وح كل الدوني مي وح كلو يربان وكجوا وينلاش وضع كحرا ما كيان وح كلا الجوش كي ما بران دوني يعني هي ضد حتى وعن كشة كينا يا ما الكلام دوني بالوش ضد حتى وعن كشة كينا يا وعليه waxaa laga wada hadlayay xad mara meesha u dhaxaysa hadii bay leeyahay yuba iyo hadaaftima dhexdooda xad ku maraya sheekooyin waxaas waxba kama jiraan Soomaaliland yubana xad uma aha xadkeedu mash ay sheegata ma aha hadaaftimana ma aha waa al-dafar way xadkeedu ay sheegata marka sheekooyinkaas waa sheekooyin waxa laga yaabaa dadka in loo soo hoosta loo soo galiyo macnaha sheekooyin la soo alifay inay baan malaynay waa laga yaabaa si ku meel gaar meelahaas qoloba maalin meelaha istaagtaagto iyo wax noocaas laakiin ujeedka fog waa inaad ogaato gooni goosad ku xudoonayo hadafka istiraatiijiga waa inaad taqaana hadafka istiraatiijiga ma aha yuba iyo haatimada toona ma xad maray waa xadka maray weeye wal dofar maray weeye iyo qow maray qodobka waa in loo ogaado marka warhaade miyeynaan madaxweynaha iyo wasiiradiisu miyeynaan dad wax garanay ahayno dadkiin iyo dalkiin idinku mas'uulka ka ahayd oo idin doortay baanu sayrada geynayna Soomaaliland ka iibinayna damiirka in fi muxuya baladka u sheega mise macnaha dadkan ayaan ma haystaan dadkan miyaan dad walaalahay la shahay miyaan reer Puntland ahay dadka kadib ma ayaan baa haystaan ayaan ka xataa xuquuq ay leeyihiin dadkan miyaan dad xuquuq leh dadka oo la dhaqmaysaan oo aad macna inta soo istaago oranayo Soomaaliland xaq bay u leedahay xorna waa u tahay gooni go'aanta marka leedahay waxaad iibisay dadkaagi baad iibsay oo bilis rag buurta ka dagaalamaya iibkiis oo kugula jira dagaal baad iibgeynaysa xaqada saas weeye qodobka weeyo waa arrin la yaab leh madaxda Puntland in la weydiiyo weeye war dadka maxaad u aragtaa
qodobkaas waa qodobka ka kaale qodobka dad baa waxay oranayaan anu xaafadan ka soo jeedo kuwa waxay oranayaan war waxba nagama gelin warsan geli iyo dhul baxanta iyo meel daran Allah ka tuuro kuwa shaqo kuma leeyahay anaga ma jeerteen baan Allah ka soo qaad sidaasba kuwa ku dooda markaan la hadlo waxaan leenahay wareed halkan waxa ka dhacaya kuwa dhibka ku dhacay waa ku dhacay minority waa laga dhigtay waa la gumeystay gudahay u galeen Rohingya laga dhigtay waa la duleeyay dalkoodana waa la qaadanayaa adigu saa ugu tala gashay way hadaba dhacdo adiga marka maxaa kugu dhacay adiga intii soo hartay bidan maxaa ku dhacay waxa ku dhacay cadowba wuxuu ku imanaya yuucada meesha la yiraahdo kuba meesha la yiraahdo qardo dusheeda armo iyo xeel daafar dusheeda iyo meesha la yiraahdo qowba cadow keensatay adiga keensaday masbad gurigaaga soo gelisay way haddayna dadka wax dhowr jeer baan arka ka hadlay dadka waa yaaban warheede warbal gobolka gala oo ilaa maanta internet meel ka sayaale bal juqraafiga Puntland soo iyo arka horta meedana wax garanay alaysa minkum rajul rashid ya qawmi miyaan qof wax garanaya jirin warbal juqraafiga eega horta juqraafiga eega magaalooyinka Puntland Boosaaso ka soo bilow ilaa iyo buurtila inta xadka macnaa uu maro waxay ku teesin laamiga ay u teesin laamigana xadki baa saa u soo maray doonaysan ciidan cadow ina keento Puntland marka maxay macnaa yeelanaysaa hadii magaalada caasimadda ahayd oo Garowe madaxtooyada uu maanta wasiirku ka hadlay wasiirkan maanta hadlayay oo khudbaynay wuxuu leeyahay kaalaya markuu leeyahay xor bay u yihiin xaqna wuu leeyahay goos kaalaya buu leeyahay sagaal og miyaa joogtaan halkan yuucada ay soo fariistay madaxtooyada dusha ay soo fariistay madaxtooyada Puntland haduu ka hadlayo wasiir maxamed cabdullaah markuu saas leeyahay kuwii kale iska badaa wixii ku dhacaya ku dhacay inta aan ka hadlaynaa intan daabiyadan baba ka hadlaynaa madaxtooyada miyeydinaan geedka yuucada miyeydinaan noqon meesha ku yararta waxaan ka kuwa reer Garowe calaamada Soomaaliland sita barka waa yaaba war dadka gorma san loo jeebaray warheedha miyeydina reer Garowe oo calaamada sito miyeydinaan garanayn inta yuucada idin jirto cadow ku soo hagaysan cadow halkan ay soo fariistay reer qardo maalin waxaan arkay dhalinyaro iska warska dhalinyaro wiil soo dhaweynay xaga ka sii wiil ka yimid magaalada Hargeysa oo Soomaaliya dhibaato lagu geystay أنا نسكت أنا يلا دبعتي ثم إلا هو عادي معنا ويل كهدي وما ينقلي وبهاي سود وين أربعة سويس كعادي واحد مشكلة هذا مله وعادي ويا مشكلة مله ولا سود وين كلام لكن واحد كي عالم كي واحد ستين سومالي قرر يجوجا دليل هنا قرر عالم محسوبته عالم كسومالي عالم كسومالي ميدنا نقرنا أول من دون عالم كسومالي مركب كوبا مرة حتى عالم كسومالي لو شيء يعني كوبا مقالة حافظ كم يدوي توم شو ملا مدرسة سند الأولياء مركب مقالوين كي بنتلان أو دنبا واحد دوشة كسر فريسان عيدا قروا قردوا عرموا ماشي الله يراهدوا حال دوفار ماشي الله يراه الحمد لله إيو مقالة بوصاص قو سليك وين عيدا عدو وصل فريسان خطرت هذا جوكتا ماشي الله يراهدوا إيو وصل كيسو ماشي جوكتا ماشي الله يراهدوا أو يجيدني maxaa adigu soo kaxaysanaysaa gurigeyga u soo gashanaysaa bal ma isweydiis aqli istiraatiiji arin markaan is leeyahay arinkan waa khatar istiraatiiji oo Puntland ku jiritaankeeda marka arinkan ka hadlaya waa khatar caasimadaadii baan ciidan cadowga xad soo gelinaya hadda banaanka iga jooga dhowr 200 kilomitir baa 300 kilomitir ku dhawaad 240 meelaha way baa u jira محليها ما لا بقول كنت باجي سوماك ما كالي سومالان هل كان مو هل ما الأفر كيلومتر محتوى وجود تحبده أكاد كسر قارته إيكار أغلى قاصب بالإله بان كل دارجي بني آدم ساء أفكري كرا متجري كرا وعيدا عضو كان فكرة غابك عضو كل نقول يعني وكل شيء جيا ضد واحد ما عضو مني هنا هذا حوانس كل شو هنا غاب عضو أنا كذا ميل وحكة يجري كرا وهم يمجري كرا بني آدم ساء أفكري كرا مجري كرا هذا كور وحني مركان أركي وحنا وأنا ليبل عواني ما هو شو ملا قرومه صوص صعداء كم الناس إنه كذب صوب يحضونه بس أو فكر الدونه أنا سيري واي قف بني آدم تدور بليون عدوه غنور قف شاء فكر كلام قرني
عدو كاله إيه كاله عدو حاجات لا بقول لك أنت كيلو مثل ما جيت ورما يا كاله ورما حاجة ماذا هل كذي قولي إيه كاله يعاضي قردوش هذا يمو عرمدوش هذا يمو مقالة بوساسو قوبة سودك يا أخي ساوي أرتين كونوا قصة الوتا غير تاسوي يا وحكة لقاش لكن ما يصح ما عيني كانت هذا المقش كونوا قصة كي سومالي لان هلكاس الدونية وين هلكا كوي في تقري أما كو عسمي بكري هنيك ويرت وقاب كجغرافي قاصات مقال بنت هذا المقشبة وبلان أنت أمغلي سبب وطريقة استراتيجية اسكو حرة قال كعيو إلى بوصاص طريقنا إلى أي بورتين لك وحاجة صعب برت الدير وحاجة كحية حتى وصار ساعد الله ربو دقع حص لو صوت ورقة ميلا غار كود طريقه حتكو كلا دقع كلا دعوة ما شاء الله يرادو يا الحمد لله دقع حص وصل دعي هذا مقالوين كان ذي شيء لما أنت وضح حافظها غير ما وحي قال حتك قروا كمذا قرداء كمذا عرمو ضفار يعرت كل واحد قال حق حدكي وذا قال مقالك واقف دين الموت حدكي وذا قال هذيك المركة اللي بات أنت هلأك ما حد لك يوسوه قامنيس معنا وحنا سكوا حنا أغني أما إنه إسقامنا إثني خاطم ما يموش إنه عاصبة أذوقنا أنا هلكته يجنا هلكته نفته هذا هلكته ما يستاهل شيء أركاس وهم ما يستاهل عقلي ما له بهاي إلا فكرة عقلي قدرت كان لوته مجرمي قال شيء اللي شيء جرمي شو جرين كيمي وحلا شيء جرمي مع هذا كله بس قوم يلا نسخ يلا قراني وحى لقاضي dhalinyaradan hadda soo kacday calankan Soomaaliland iska siita wayna calanka Soomaaliland wuxuu yahay fahma calanka Soomaaliland marama qabiilna mare dad waxay haystaan calanka Soomaaliland markay qaataan in qabiilka isaaqal ay amaanayaan niyad wanaag u muujinayaan ma calankan qabiil ma calan qadiyad goon goosad dal la yiraahdo Soomaaliland waxa kiisu marayo cada way ba calankan leh waana soo fahamtaa إساق هذا ربطه هدي إساق حرار كلا دحيو وقبيل كإساق هذا وشائشي وحين كده حيانه وحسكوش شوطانه أما حليل اللطة أما وناقه هيسو أما هذي يكون لين إساق سيسا وأمانة كرتا قبيل كإساق حرير بالي تدكو شمال وحوي وولال واستحكلان وحوي وداجان واللي يبتبع اللي يسوي هاي ولا كلا جول سوا حجر وعادي وحاسو حركة ما مشكلة ما وحاسو هذا المركب أبوه قبيل كإساق وحين كده حيان أما سبب ودون سنة من وراك ثم يستو قابب كلا يوضون كلامه لكن على كان الشمالي اللي ومدل كاي البوش يجنايو هنا حجوجن هنا حيران هنا سوق تجي تمكن يواسا سوقلت سك كلام هذا أمانة كرتا وروا غير هبل وناك سنتهينو غير جباتهينو وكاس وحربت أخلا ضربت وقبيل كيسا عد علادي نبعو علادي عندكم ملك لكن هذا شو خلد وين أتكلم فهمته حيالا كذا بنا وحكمله وعن سيري وحلوبها هي بلا واحد يبغى هنتها إن نظامك وحبرشة الوجود واحد سومالي واحد dadku Soomaaliland ma yaqaan qaar waxa dad badan waxa arkaysa Soomaaliyeed wuxuu oranayaan marka tira ruuxan calankan waxaan wata waxaan qabiilka baan doonaynaa Soomaaliyeed inaan nidaam ugu muujino isaaq warda isaaq iyo waxa iska galay calanka isaaq miya calanka dhul baa lagu sheeganayaa qabiilka isaaq calan ma samaysana moogta qabiil calan lama jiro marka calankan dadka waa in loo sheegaa Soomaaliland waxay tahay xadkeedu meeshuu maro waxay doonayso خطرت أي بنت لنا كنتهاي على كان وحو كتر جمايو يجوب عرورته ووديعني وحو ديجان كود بوري وحي بوديجان الثاني يبودي يجد كوي وديار فيه تذكر بقول أنا يسوي هذا كلام ديار فلا وين تذكر ووديجان وحن ويران معنا وين ميلها الجامعة هذا يدرس وين لقوا بحياة تذكر وحلوش هو تذكر أنا يلا وحن دريمة إن أنا وحي فهم سنة وحموده يعني السوشيال ميديا إسكار كيا على كسومالا ولا يسوهم بليانيا على كي بس كخبر على كان وقضيات خطر بدن وجون وجوث dalkaaga dadkaaga doonaysa inay qaato magaalooyinkaaga dusha ka soo digto dhibaato kugu samayso adiga cadow kugu awey marka sabab ku taageertaa ma jirto sabab ugu wataa ma jirto sabab ugu soo dhawaysaa ma jirto hadaad u soo dhawaanayso qofka shakhsiga inta u soo dhaway calanka maxaa ku geeyay qodobkaas waa qodob oo ma sha Allah sida in loo fahmo marka khatarta istiraatiijiga ah iska badaa waxaan ka hadlaynay SSC khaatimo iyo iska badaay Puntland intii yarayd baba waxay galaysaa qof cunaha la qabtay kale ka duwanaan mayso qof cunaha la qabtay ka duwanaan mayso
sida dad baa waxay ku oran karaan maya ee hadda saaxiib baanu noqonayoo way isku soo dhowaanay ciro iyo waxa weeye ninka la yiraahdo saaxiib baanu noqdeen daniyo hadda Puntland iyo Somaliland walaalay noqdeen wax dhibaataan ugu hayaan hadday halkan yimaadaan wax caadi weeye hadday guryahayaga soo galaan waa caadi walaalo dad baa ku oran kara dadkaas waxaan isleeyahay waa dad aan alif ba uga bilaabnayn waxa siyaasadda iyo istiraatiijiyadda iyo amniga la yiraahdo sida banaanba dhinacyo darisa oo xuduud leh weliba bisma amni karaan wax kasta dhici kara hadda haddii ciro iyo dani ay saaxiib yihiin haddii labada xukuumadood ay saaxiib yihiin labaduba geedi iyo geeriba walay berri iyaga waxa qabsan kara mid kale oo ka duwan ciro oo cadow Puntland ku noqon kara ba qabsan kara Puntlandna waxa laga yaabaa in maamulkiisa bedelo oo hogaamiye aragti kale leh uu qabsado marka haddii markii hore la isku fiicnaa waa la isku xumaan karaa calaamad barxamad marka xuduuduhu khatarta leeyahay xuduudta xuduudaha la isma aamino waligeed dalal xuduud la isma aamini kara walaalaha hadday yihiin dal isku isiri waxa laga hadlamaayo xuduud ma meesha mataa la isma aamini karo waxa kale uu kugu sameyn karaa waxa weeye wuxuu kugu soo hobeyn karaa mucaarad adiga mucaarad ku kacay baa u geli karo hub ka soo qaadan karo hadda haddii jabhada Puntland ka dilaacdo oo ay Somaliland u gasho dariiqa magaalada u dhaxeeya Garowe wax la gaalkacyo iyo Boosaaso waa go'aya jabhadu uma baahna dagaal ay soo qaadaba waxay u baahan tahay wax yar intay soo socoto dariiqa istaagto gawaarida baarato dayna dib u noqoto amniga dariiqaas oo dhan baa isxiray magaalooyinka xabada ka bilaaban karto ilaa xad international way ma gali kartid moogta adigu ma weerari karto waxa inta adaa aqoonsaday moogta wasiirkana inay yiri sir Cabdiwahaab wuxuu yiri xaq bay u leeyihiin inay go'aan hadday go'aan wasiir waxa weeye madaxtooyada xabad baa lagu soo ridi karaa kamana jawaab waa xadkii bay galeen baa lagu leeyahay jihad baa madaxtooyada xabad ku soo ridi karta dariiqa waa go'ay karaa ana teen baa la go'ay karaa haddii labadiina dhinac dagaal idin dhex maro dagaalku wuxuu ka bilaabmayaa yoocada oo madaxtooyada Puntland 4 kilomitir jirta iyagana caasimadooda waa Hargeysa oo 1 kilomitir meesha u jirta bal fiiri miisaanka soo yahay bal fiiri iyagana hadda waxaad moodaa inay iyagu yeeri lahaayeen meesha la yiraahdo masallaha oo Hargeysa ku dhaw xad laga dhigo dawlad kale soo degto ma yeeri lahaayeen oo dawladdu war ha soo adeega tii Cabdullaahi dawladda madaxka ee saaxiib ah masallaha soo deg meena yeeri lahayn ba kula tahay ma masallu waa meel Hargeysa dusheeda ah erbarku xaafad ka mid ah Hargeysa misjiro way yeeli lahayn burcad dusheeda ma yeeli aduu soo ku yeeri kartaa marka wax kasta isbed daqiiqad kasta wax isbedeli karaan hadda u fiirso Ethiopia marna waxay mar mowqif bay qaadanaysaa isbedel waa ka hadlaa Ethiopia mar mowqif baa adduunka waxa isbedeli kara haddaad maanta dawladda kuwa xukunka jooga saaxiibtii berri kuwa kala imaan kara ma labadan hadda jooga waxa laga yaabaa inay iskhilaafaan oo isku dhacaan oo kala aragti noqdaan shalaba ninka la yiraahdo dani wuxuu saaxiib la ahaa wadi la ahaa Xasan Sheekh haddana waa isku dhacaan Soomaa Xasan Sheekh wuxuu wadi la ahaa dadka uu hal taageero markii la dagaalamay farmaajo marka qodobka dadku ku oranaya ma waxba yeeli mayaano walaalaanu nahayo waxa weeye xiriir wanaagsan baan leenahay halkan haday waxba yeeli ma wadadan aragti dheerayn oo siyaasad iyo amni iyo istiraatiijiyad iyo shoomala aan wax uga bilowno weeye ciidan dawlad kale iyo nidaam kale oo xadkaaga magaalada caasimadda dul degan marna lama aamini karo xiriir iyo waxba aan isku shubanaay saacad kasta wax isbedeli kara saacad kasta ayaa wax isbedeli kara Somaliland sidoo kale ku taabilaan marna lama aamini karo laakiin waxaan hadda dadka ka sheekeeyay xiriir baan leeyahay lama aamini karo dadba waxay ku oranayaan Somaliland xiriir baan la yeelanayaa xad kale iman mayso waa halkii ahayd maxay kalluunka reer miyiga waxay yiraahdaan kalluunka waa cunaa laakiin orkiisa sanka ka qabsanaa kalluunka waa cunaa Somaliland hadaad maqasho Somaliland xiriir baan la yeelanayaa xad kale iman mayso waxa suuragal ma maradaad xiriir la yeelato isku shubataan waxa weeye waxa aqbasha xadka inay timaado way iyadoo xadkaasi doonaysa kamana maaranto nolosheeda ku xiran jiritaankeeda xadka ku xiran adigana jiritaankaagu wuxuu ku xiran yahay inay meesheeda joogto oo ahla soo dhaaf ay ku xiran jiritaanka qodobka markii waa in loo fahmo
waxyaalaha ka yaa waxaa ka mid a wasiirkan hadda wasiir maxamed cabdi oo reer muduga reer mudug wasiirka maanta hadlayay reer muduga waxaan ba ku ogaa anuu dadka waan kala aqaanay reer muduga inay dhiifoo yihiin baan ogaa oo ay garan karaan khataraha xuduuduhu leeyihiin war wasiir xaggee wax kaa maray oo reer muduga waxaan ba anugu oran jirayba dadka ugu roono difaaca puntland baan anugu hadda ku tiriya dee maanta reer mudugii baa kudlad waxaa laga samaystaa laga dhex samaystaa gooni goosad u ololeynayso cadow u ololeynaysa war bal reer mudugow dib isugu noqda oo arrinkan soo kordhay oo kooxaan horgallada ah oo reer mudug ka soo baxay waa in laga hortaga waa in laga hortago wey khatar bay ku yihiin puntland iyo jiritaankeeda marka qodobkaana kama malaynayn alla waxaan lahaa reer mudug dee waxay garan karayaan dad xuduud degan wey moogta qofku dadku markay xuduud degan yihiin khataraha xuduuduhu leeyihiin waa garan karaan khataraha cadowgu leeyahay waa garan karaan dadka gudaha ku jira waa ka dhiifoo yihiin dee hadda waxba isbedel baan isleeyahay qodobkaas weeye oo iyadana arrinkaasu arrin khatar badan oo ay tahay in lagu baraarugo weeye waxaan ku soo ebyaya hadda ka hor baa madaxweynaha puntland iyo kooxa ku hareereysan go-aan istaraatiiji qaateen oo dadka puntland ku hogaamiyeen jab iyo naasnaasin baa lagala kulmay waa markii ayna yidhaahdeen ha lala dagaalamo oo ha la mucaarado madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo anigu maaha inaan maxamed cabdullaahi farmaajo taageersanaa maaha ha u qaadan weligay ma taageeran haddana ma taageersanin puntlandna inuu mashaakil macnaha mararka qaarkood dhibaatooyin yaryaroo isaga puntland ka dhexeeya waan garanaya waxa waan fahamsanahay laakiin go-aanka istaraatiijiga ay qaateen oo yidhaahdeen ninkaa hala mucaarado kooxihii muqdishona ha lala shaqeeyo hadda dhibaatadayna ku haya natiijada ka dhalta soo lama arag soo hadda gacanta kuma hayno reer puntland gacanta ma ku hayna in dhibaato igu filan faraqan ku haysta mata maanta halka ayaa inu ku hogaamiyey madaxweynaha puntland iyo kooxdii ku hareeraysanada oran kara lalama hadli karo doodii berigaa waana laka xiray annaga dadka iyagii lahaa warbal jooga oo ninkan waaba garanaynaa inuusan nin hadda macnaha annagu maba taageersanin ninkan la yiraahdo farmaajo wuxuu yahayna waaba garanaynaaye laakiin maxaa ka dambeeya cidda aad meesha keenaysaan maxay yihiin hadday kuwa ka daran yimaadaan ka warrama oo aad mindada daabkeeda u dhibtaan kuwayna ku gowracay way dhacdo waana laka xiri jira dooda maya lama hadli karo halkaasaana lakaga soo haleeli jiray dadka dooda waxa wey lama ogolayn maya durbaan baa la watay reer puntland farmaajo hala riday farmaajo cadow weye farmaajo nagu soo duulay waxaa dadka lagu sheekay jira warbal jooga warna dhegeysta war xaggee lagu reer ku wadan wareer farmaajo garanay wuxuu yahay waa garanayna laakiin wax ka khatar badan baa noo muuqda baan oran jiray lanama dhegeysan jirin tii oo kale maanta ka baqay inay dhacdo oo durbaan la qaato somaliland walaalaal noqday oo qofkii yidhahda war ka joogana halkaa lagaga soo halina maya SSC khaatimo u shaqaysa SSC khaatimo warna waa SSC khaatimo shaqo kuma leeyine iyaga istabiraaye xaggee noo wadan maxaa ka imanaya yuucada hadda ciidan cadow keentaan ka warramo maya ma dhacayso bari haddaad qabataan ka warramo maya isu qaban mayno hadda waad ogeydeen madaxweynaheenu shuu shalay u hubay inuu saaxiib la yahayoo ay wada yihiin ninka la yidhahdo xasan sheekh isagu shaarumays ka dhunkanay waad la socotay maantana waa kuwaa kala tegey markii cidlo looga tegay isaga la isticmaalay ana waxaan ka wadaa macnaha kaar ahaan wada ujeedadeeda laga gaaray madaxweyne banaanka la iska dhigay madaxweyneheen marka arrinkaa waa in lagu baraaruga oo khaladaadka istaraatiijiga oo la galo waxbaa laga soo bartaa dadku waa inaan wax baranaa oo haddii aanan arrinkaa wax ka baran iyo arrimaha hore u dhacayba haddaan wax maalin kasta waxa la god qof muslima god laba jeer lagama wada qabo 10 jeer miya god inay ka qalinaya maalin kasta meel baa layna ku shubayaa god madow oo ka naasnaasinayna hadhowda ka shalaayayna waa mayd arkaas inuu ku dhaco waa in gacanta laga qabtaa madaxweynaha waxyaalahan ka yaab waxaa ka mid a hadda mucaarad baa puntland ka jira mudug iyo nugaal iyo bariba dhaqdhaqaaqaya ka jiray maalmaha mucaaradka ma arag cid ka hadlaysa arrinkan ma arag oo oranaysa way ka faa'idaysan karaan garab anigu maaha tubaraac waxay ma laakiin iyagu kuwa ka faa'idaysanaya oranaya warheedhe madaxweynihii nidaamka hargeysa gooni goostka buu hoosta ka galayo waday la noqday cid oranaysa miyaad aragtay waa may waxyaala kale ka hadlaan muqdisho iyo konfederaal waxay ka hadlayeen meel kale ku aadeen ma arrimahaas laftigooda waxay ku aadeenayaan ku aadeenayaan maleeyahay mucaaradka
لكن معارض كهل يقضب كان معرض وهو بنرقص إن أنا إسمع إنك مش أنا إسمع عن مش أنا الله معارض الله فتوى واحد لقى يغلط فتوى إنه يساعد طبعا بقى سمال تاجسين يقول بالغياب لكن معارض كبنت الآن ولا الربعين هذا مدحوينه كتشو والله odayaal ma ka hadlayman odayaasha la soo inay warheede xageed dalka ku wada dadkeeni iyo dalkeeni ee isku dadka ahayn isku dastuurka iyo isku isirka iyo miya qaar kamid ah kadaysaa Soomaaliland ka iibinaysa soo in la weydiiyo madaxweynaha cid weydiinaysa ma aha ogaadana ummaduhu markay soo noqdaan sidii aan dul soo korin waa jaba ummaduhu markay dhaqankaas noocaas uu abuurmo oo hogaamiyaha isagoo khalad ku socda marka la arko la iska daayo oo lagu taageero ummadahaas waa halaagsamaan ajuuraan iyo xarla koomba iyo maqal jirteen xarla koomba dad Soomaali ma garanayaan bal xarle nimanka la yiraahdo koombahaas dad baa waxay yiraahdaan waba meel kale keenay xarle ma maqlay mar bay adduunka maamuli jireen miya hada maqashay qof xarla dad oromay ku biiray wixii ajuuraan أجي أجوران بدك اللي أورنجي ما أجوران كم قف أجوران ما هنا وقف إنه إذا أجوران هذا اللي ما هنا وقف إنه لكن بقول طيب ضلك هيستي هاجري قلب جيران هذا مغلق جيران وأجوران بقدر نجي هذا ما له هاد كله يرمي أرك أمضوه مركز سدا أودغ ما وخرط كلا قبل وياه وأركي استراتيجية ماشي كبحضه وعدو هو سوق الشدان وصار ورده والله سيدي أجوران كي يحرلكم بكرة على النقطة أنا أقول عن كدقية وحد الدقدقة ما لكن مستقبل فار مركل الله بقولالك أنا صوص على هدي إنه سيدان كوسي عن غير بالله وحن كعب صغبة إنه سيدي أجوران كي يحرلكم بكرة نقطة بنكعب صغبة أرن كهلو برارو غير بالله هنا اللي سكاسي أيان الله waxaan ka hadlayaa waa maslaxada istiraatiijiga ee Puntland ee maslaxada anigu aan leeyahay ma aha toobarraacna ma aha cid aan ku nabcaanahay cid waxa ma nacay cid gaar loo hayana ma aha waa strategic interestiga danta istiraatiijiga jiritaanka Puntland ayaan anigu ka hadlayaa dhibaya ma aha waxaan iga gaar ma jiraan way wad salaamad